sheeko aad u cakiran ayaa laga soo sheegayaa garoonka Allianz Arena oo ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich waxaana halkaasi la warinayaa in qaar ka mid ah xidigaha kooxda Bayern Munich oo dagaal ku dhexmaray Sadio Mane iyo Leroy Sané ayaa ah xidigaha dhibaatada ugu badan ee ka dhex taagan tahay waxayna ku dagaalameen qolka lebiska ee kooxda Bayern Munich kadib kulankii weynaa ee Champions League ee kooxdoodu ee guuldarrada kala kulantay naadiga Manchester City labada ciyaaryahan ayaa hadallo kulul isku dhaafsaday gudaha garoonka markii ciyaartii ee xiisaha badneed ee labada kooxood ee Jarmalka iyo Ingiriisku ay soo dhamaatay iyadoo xidiga reer Senegal ee Mane uu weerar ku qaaday Sané goortii dib loogu laabtay qolka lebiska wargeyska ugu weyn gudaha Jarmalka ah la yiraahdo Bild ayaa soo wariyay in Sadio Mane uu wajiga ka feeray Leroy Sané lana arkayay dhibana Sané oo bararay isla markaana dhiigaya xidigaha kale ee kooxda ayaa kala dhaxgalay labada nin Mane ayaana isaga tagay marka loo eego banaanka uga baxay qolka lebiska iyadoo kooxda Bayern Munich aysan ka hadlin arintan ee ka dhalatay marka loo eego labada xidig inay isdagaalaan balse waxaa la sheegayaa in baaritaano lagu sameyn doono dhibaatada keentay in labada xidig ay isdagaalaan bixintu waxay intaa ku dareysaa in Mane uu yahay kan gardaran waxaana laga yaabaa in xidiga xulka qaranka Senegal la ciqaabo amaba xitaa laga diro kooxda Bayern Munich Mane wuxuu horey isugu dhaceen macallin Julian Nagelsmann oo shaqada kooxda Bayern laga ceyriyay waxaana la leeyahay tani waxay saameyn ku yeelan doontaa qaab ciyaareedka Mane maadaama uu ahaa xidig degan oo marka loo eego aan dagaal badnayn dad badan ay ku daydaan sidaas oo ay tahayna waxaa la filayaa in banaanka la keeno waxyaabaha xidiga muslimka ah ee Sadio Mane oo ka xanaaqay oo ugu dambeyn oo ugu gacan qaaday xidiga Jarmalka ah ee la yiraahdo Leroy Sané